Tiimku waa idin salaamay. Salaam kadib caawa waxaa qaadanaynaa casharkeennii saddexaad ama sheekadeenna saddexaad ee luqadda Talyaaniga. Sheekadan waxay ku saabsan tahay maamadan halkan idinkaga muuqato ayada iyo eeygeeda. Marka sheekada waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Mi chiamo Maria. Magacaygu waa Maria. Oo 68 anni. Waxaan jiraa 68 sano. Ero un infermiera. Waxaan ahaa jiray kalkaaliso. Ma ora laakiin hadda sono in pensione. Waxaan ahay howlgab. Vivo in una piccola casa. Waxaan ku noolahay guri yar. Con il mio cane. Waxaan kula noolahay eeygeyga. A volte mararka qaar mi sento triste. Waxaan dareemaa murugo. Perché maxaa yeelay la mia famiglia qoyskayga ama familkayga non mi viene iguma yimaadaan a trovare booqasho. Okay, waxaan rajeynaa inaad fahanteen. Again waa ku celinaa mar kale. Sheekadan waxay ku saabsan tahay maamada halkan idinkaga muuqato. Levelka waa halkan ka arkaydin waa level A2 ama A2. Lesson-kana waa lesson-ka saddexaad. Marka oo ku soo celinaa mi chiamo, my name ama magacaygu Maria waa Maria. Oo waxaan jiraa 68 anni 68 sano. Ero waxaan ahaa jiray ama waxaa ahaa ereygan ero wax la soo dhaafay waaye past ama passato remoto ama I used to be. Waxaan ahaa jiray un infermiera kalkaaliso ama nursing. Waxay ahaa jiray kalkaaliso. Maamadan dabcan waxay ahaa jirtay kalkaaliso. Ma ora laakiin hadda. Ma laakiin ora hadda ama xaadirkan. Sono waxaan ahay in pensione howlgab qof oo retired ah oo howlgabay. Okay. Vivo waxaan ku noolahay I live in una piccola casa. In a small house. Waxaan ku noolahay guri yar. Badanaa cashiraanta Talyaaniga ama sheekooyinka waxaa ka buuxo Vivo in una piccola casa. Intaan most ka buuxan Vivo in una piccola casa. Waxaan ku noolahay guri yar. Mararka qaar Vivo in una piccola apartamento yar. Okay, nessun problema. Waxaan ku noolahay guri yar. Con waxaan kula noolahay with il mio cane, my dog ama eeygeyga. A volte mararka qaar ama sometimes xilliyada qaar. Okay. Mi sento waxaan dareemaa aniga sento waxaan dareemaa I feel waxaan dareemaa oo kale triste murugo ama sadness I feel sadness waxaan dareemaa murugo. Perché maxaa yeelay ama because. Okay. La mia famiglia qoyskayga ama my family non mi viene iguma yimaadaan ama familkayga iguma yimaadaan. Okay. A trovare booqasho. Qoyskayga ama familkayga iguma yimaadaan wax booqasho ah. Kaliya waxaa isla nool aniga iyo eeygeyga. Waxaan ku noolnahay piccola casa guri yar. Maamada sidaas ay leedahay. Okay, again ku celinaa. Mi chiamo Maria oo 68 anni. Magacaygu waa Maria. Waxaa jiraa 68 sano. Ero un infermiera. Ma ora sono in pensione. Laakiin waxaa ahay hadda howlgab. Waxaan ahaa kalkaaliso laakiin hadda waxaa ahay howlgab. Vivo in una piccola casa con il mio cane. Waxaan ku noolahay guri yar. Waxaan kula noolahay eeygeyga. A volte mi sento triste. Mararka qaar waxaan dareemaa murugo. Perché la mia famiglia non mi viene a trovare. Mararka qaar waxaan dareemaa murugo maxaa yeelay familkayga iguma yimaadaan wax booqasho ah ama ima soo booqdaan. Okay. Mi chiamo Maria oo 68 anni. Ero un infermiera. Ma ora sono in pensione. Vivo in una piccola casa con il mio cane. A volte mi sento triste perché la mia famiglia non mi viene a trovare. Magacaygu waa Mario. Waxaa jiraa 68 sano. Waxaa ahaa kalkaaliso
laakiin hadda waxaan nahay howlgab. Waxaan ku noolahay guri yar, waxaan kula noolahay eegayga. Mararka qaar waxaa dareemaa murugo maxaa yeelay familkayga iguma yimaadaan wax booqasho ah. Haddii aad fahantay, commentiga ku soo qor waa fahmay. Okay.